بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan halkaan isugu imaanay warbixintii toddobaadlaha ahayd oo bulshada rayidka ay ku soo gudbinaysay dareenka shacabka iyo aragtida bulshada rayidka qaabkay u socdaan doorashooyinka iyo halka ay wax marayaan maanta oo taariikhdu tahay 25 November 2021 bulshada rayidka waxa ay soo dhaweynaysaa bilowga doorashooyinka kuraasta Somaliland iyo soo gudbinta liiska hordhaca ee kuraasta doorashooyinka la qaban doono oo ay soo gudbiyeen maamul goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed. Tani markii ay bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka waxa soo baxay cabashooyin ay qabaan qaar ka mid ah odayaasha qabaa'ilada iyo siyaasiyiinta u tartamaya kuraasta ay kuwaas oo ay tilmaamayaan in nidaamka doorashooyinka ee lagu heshiiyay aysan waafaqsaneen sida ay hadda wax u socdaan waxaana muuqata in madaxda maamul goboleedyada ay faraha kula jiraan doorashooyinka kuraasta golaha shacabka. Bulshada rayidka waxa ay walaac ka muujinaysaa faragelinta dowladaha maamul goboleedyada ee doorashooyinka golaha shacabka ay ka dhalan karto khilaaf siyaasadeed oo sababo deganaansho la'aan. Sidaas darteed waxaan u soo jeedinaynaa madaxda dowlad goboleedyada inay dhowraan heshiiskii ay gaareen 17 September 2020 iyo habraacyadii tilmaamaya in ay habraacyadiisa oo tilmaamaya in aan faragelin lagu sameyn musharaxiinta iyo hogaamiyaasha qabaa'ilka xulista ergooyinka. Shacabka Soomaaliyeed dan uma aha in waqtigan oo ay jiraan xaalado abaaro baahsan iyo xaalad amni in la abuuro khilaaf siyaasadeed oo wax u dhima deganaanshaha dalka. Waxaa weli laga diyaarinayaa xaaladda abaaraha ee ka jirta ee qaar ka mid ah gobolada dalka taasoo galaafatay nolosha dad iyo duunyo. Bulshada rayidka waxa ay ku baaqaysaa dowladda federaalka, dowladaha maamul goboleedyada, ganacsatada iyo intii wax ka geysan karta in gurmad degdeg ah loo fidiyo dadka ay abaarahaasi saameeyeen. Ugu dambeyn, bulshada rayidka waxa ay u soo jeedinaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in loo istaago sidii dalka ay ugu dhici lahaayeen doorashooyin la aqbali karo oo deganaanshaha siyaasadeed wax ku soo kordhiyo. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وما سنتين.